videogan waxaan idinku tusin doonaa softwareda aad u baahan tahay in aad ka warhaysid ama websiteda aad u baahan tahay in aad isticmaashid si aad u raadisid product ku iibsanto. Product research tools ayaa jiro inta badan dadka ay isticmaalaan. waxaa jiro qaarkood kuwa free iska ah, qaarna waxaa jiro kuwa oo paid ah. waxaad u baahnaanaysaa in lacag aad qarash garaysid si aad isla markaas aad u access garaysid, aad u heshid productiga aad raadinaysid. waa ogsantiin wax kastaba free ah ama bilaash ah sidiisaba inta badan micno ma lahan, qiimana ma lahan. waxaad u baahnaan doontaa in aad isticmaashid software si isla markaas ay kugu sahasho inaad heshid producti ama alaab ku iibsanto adoo aad sameynaysid go-aan oo la hubo aad data aad u isticmaashay ama macluumaad ama aad fiirisay productiga siduu u gadmaayo trendigiisa ayaa aad iyo aad muhiim u ah. balse waxaan rabaa inaan idinla qeybsado qeyb ka mid ah softwareda ama websiteda aad isticmaali kartid, aad ku raadin kartid free inaad alaabta aad ka heshid. kooda waxaa ka mid ah sidaan idin soo sheegay Amazon best sellers rank inaad aadid adigoo isticmaaleysid shuruudaha aan kusoo tilmaamay videoyada kale ayaa ka mid ah. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa AMZ base, asana waa sidaas oo kale website aad aadi kartid oo aad ku raadin kartid si alaabta aad u baahan tahay adoo isticmaaleysid keywordka ama adoo isticmaaleysid productiga ku gadmo. haddaba laakiin websiteda inta badan freega ah waqti ayay kaa qaadanayaan sida ogsantihiinba. adoo 5 shuruud aad fiirinaysid, midkaan fiiri kan ka bax kan fiiri, waqti ay qaadanaysaa. sidaas oo kale websiteda qaarkoodna waxaa waaye macluumaadka aad u baahan tahay inta badan inaad ku go-aansatid ma helaysid. marka waxaa inta badan muhiim oo dadka aan ku qalqaalin lahaa in ay isticmaalaan websiteda ama softwareda inta badan lacag loo bixiyo si loo raadiyo, waayo waa maalgashi oo hadda aad sameynaysid. waa inaad maalgashataa, go-aan fiican aad qaadataa kahor inta aadan lacagta intaasoo kun ama macnaa intaasoo lacag aadan ku qarash garaynin alaab aad keenaysid ka bacdina aad ku khasaaraysid. waxaa beel ah go-aan wanaagsan inaad qaadatid. sidaa idin sheegayba softwareda kuwa freega ah oo idin soo tilmaamay inta aan isticmaalay, inta aan garanayo intaas leemahan waa ay badan yihiin. waa wax badan. inta kale oo paid ka ah ama lacagta loo bixiyo inta badan aan isticmaalay. qaaro badan ayaa jiro oo magaalada ku jiro aanan isticmaalin, laakiin kuwa aan isticmaalay waxaa ka mid ah Jungle Scout, Amaze All, Sonar Tools. intaas ayaan isticmaalay. marka intaasna waa idin lasoo qeybsan doonaa. waa arkaysaan videoga xigo. isku daya marka in aad intaas isticmaashaan ama kuwa kale ku fiican haddii aad heli kartaan in aad kuwaasna aad kusoo darsataan. waad ku mahadsantihiin. haddii aad u baahatid in aad Amaze Owl ama Jungle Scout aad iibsatid, waxaa meesha ku jiro affiliate link, lacag aan ka heli doono ama commission aan ka heli doono haddii aad linkigaas aad ku iibsatid. haddii aadan rabin ama waxaad ka ogaan rabtidna waa iska caadi, balse linkiga waxaad ka heli kartaa oo Amaze Owl qeybta hoose oo aan idinku soo bandhigay. waxaan filayaa in aad isticmaali doontaan linkiga si aad u iibsataan haddii aad doonaysid inaad hore usii socotid. waana ku mahadsantihiin. waxaan sii gudageli doonaa videoyada kale ilaa iyo amar dambe.